بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. haddii aad rabto inaad hagaajiso xaaladaada dhaqaale, haddii aad danaynayso inaad ka baxdo faqriga daa'imka ayaan dhammaadka lahayn, haddii aad jeceshahay noloshaada inaad horumariso, haddaba muuqaalkan waxaan kugu sharxi doonaa 8 tallaabo oo si wanaagsan loo qorsheeyey sida lagu yeesho hantida adigoo isticmaalaya caadooyin maaliyadeed oo fudfudud noloshana lagu dabaqi karo sida uu qoraaga Jeff Ross kaga hadlay maqaal uu ku qoray majalada Forbes. haddaba si toos aan u bilowno tallaabooyinkaas. tallaabada koowaad, haddii aad tahay shaqaale u shaqaysi hagar la'aan ah, dadaalka iyo hagar la'aanta shaqadaada waxaad ku gaaraysaa guulo badan. xitaa haddii aad qorsheynayso mustaqbalka meel adiga kuu gaar inaad yeelato, u shaqaysidii adiga inaad leedahay oo kale shirkadaad ka shaqaynayso, oo had iyo jeer isku day inaad horumariso waxqabadkaaga iyo shaqadaada. tusaale, haddii aad si hagar la'aan aad mar walba ugu shaqayso shirkadda aad shaqaalaha ka tahay, oo mar walba aad soo bandhigto talooyin joogto ah oo lagu horumarin karo howlaha shaqada shirkadda, middaasi wuxuu ku horseedaysaa inaad hesho dalacsiin joogto ah iyo mushaarkaaga in lagu kordhiyo, iyo inaad noqoto shaqaale ka tilmaaman shaqaalaha kale ee ka shaqeeya shirkadda. tallaabada labaad, iibso waxaad u baahan tahay oo keliya. xakamaynta rabitaanka wax iibsiga waa tallaabo muhiim ah oo hantida lagu kasban karo. ka hor intaadan wax iibsan, isweydii haddii aad si dhaba ugu baahan tahay waxaan aad iibsanayso iyo haddii kale. haddii aadan u baahnayn, waxaa wanaagsan inaadan soo gadan shaygaas si aad lacagtaada u seefgaraysato. laakiin haddii aad si dhaba ugu baahan tahay, waxaad tagtaa dhowr dukaamo adigoo dukaan walba qiimeynayo alaabta aad rabto inta uu gadayo. ugu dambeyn waxaad alaabta ka soo gadataa midka ugu raqiisan. tusaale, halkii aad sanad walba telefoon cusub oo markaas soo baxay ka iibsan lahayd, waxaad sugtaa telefoonka aad haysato inta uu ka dhammaado ama uu ka halaabo uuna noqdo mid aan la hagaajin karin. isticmaalka qalabka aad haysato muddada dheer waxay kuu badbaadinaysaa lacago badan. lacagaasna waxaad ku samayn kartaa maalgelin si aad faa'iido ugu hesho mustaqbalka. tallaabada saddexaad, qayb ka mid ah dakhligaaga u gooni yeel kayd. mid ka mid ah xeerarka dahabiga ah ee lagu dhiso hantida waa kaydinta qaar ka mid ah dakhligaaga si joogto ah. sidaa darteeda u gooni yeelo 10% mushaarkaaga inaad ka dhigato kayd intaadan lacagta mushaarka ku bixin wax kale. isku day lacagta aad kaydinayso inaadan ka yarayn 10% mushaarkaaga bil walba, kadibna si tartiiba u kordhi. wax waliba dhacna lacagtaasi ha u isticmaalin noloshaada maalinlaha, kaliya waxaad u isticmaashaa inaad ku maalgashato mashruuca markaas aad u baahan tahay. tusaale, haddii aad qaadato mushaar bil walba $1,000 ah, hadafkaaga koowaad ha noqdo inaad keydiso 10% bil walba, micnaha $100 bil walba inaad keyd ka dhigato. hal sano kadib waxaad haysataa $1,200 oo aad u isticmaali karto maalgelin. tallaabada afraad, raadi waddooyin kale oo aad ku kordhin karto dakhligaaga. kordhinta dakhliga ku soo gala waa suurtagal haddii aad diyaar u tahay inaad raadiso fursado cusub. ka fikir inaad barato xirfado cusub si aad u hesho ilo kale oo dakhli kaa soo gala. tusaale, haddii aad si fiican u taqaano xirfadaha loogu shaqaysto online-ka, waxaad ku shaqaysan kartaa si madax bannaan waqtiyada aad firaaqada leedahay, taasoo kuu oggolaanaysa inaad hesho dakhli dheeri ah. maalan, waxaad ku fiican tahay xisaabta, waxaad ka samayn kartaa courses, kadibna waxaad ka gadan kartaa ardayda u baahan, ama si online ayaad casharo ku bixin kartaa. ama waxaad noqon kartaa home teaching oo ardayda inta aad guryahooda u tagto ayaad wax ku bari kartaa. sidoo kale waxaad samaysan kartaa website, waxaadna ku soo gudbin kartaa qoraallo dadka ay ka faa'iidaystaan, adigana waxay kuu noqonaysaa ilo dhaqaale kaa soo gala. howlahaasoo dhan waxaad ku heli kartaa dakhli ziyaada oo ku soo gala. tallaabada shanaad, naftaada maalgeli. waxa ugu wanaagsan ee la maalgashto waa naftaada. isku day inaad naftaada maalgeliso oo aad wax barto. mar waliba ay aqoontaada siyaado, waa mar walba aad fursadaha dakhliga ku samayn karto sii siyaadaan. sidaa darteeda naftaada u hor waqti iyo maal si aad wax u barato. baro diintaada, qaado koorsooyin waxtar leh. isku day inaad shahaadooyin aad qaadato, ha ahaato shahaado dugsi sare ama shahaado jaamacad sida baccalaureatka ama masterka. tag meelaha lagu qabto aqoon isweydaarsiga, ka faa'iidayso seminaarada la qabto, baro xirfado aad ku shaqaysan karto sida farsamada gawaarida, farsamada korontada, farsamada sida loo dayactiro guryaha. waxbarashada waxay sii labalaabaysaa fursadda aad ku heli karto dakhli ziyaado ah. tusaale, qof haysta shahaado jaamacadeed baccalaureate ama master, xirfado kalena sii bartay sida xirfadda digital marketingka, web developmentiga, kuna sii darsaday farsamooyinka gacanta lagu qabto sida in solar la xiro, in gaari la hagaajiyo, guri la dayactiro, koronto in la xiro iyo wixii la midka ah. qofka noocaas oo kale ah waxa aad u bata fursadaha uu dakhliga ku samayn karo. tallaabada lixaad, isku day inaad furato ganacsi kuu gaar ah adigoo la tashanaa dad khibradda u leh ganacsiga aad rabto inaad furato. inaad samaysato shaqo adiga kuu gaar ah waxay kuu furaysaa albaabo dakhli aan xadidnayn. sidaa darteed markaad bilaabayso ganacsi adiga kuu gaar ah, marka hore isku day inaad ka shaqayso ganacsigaas ugu yaraan 6 bilood si aad si fiican ugu fahanto. kadibna la tasho dadka khabiirka ku ah ganacsigaas. markaad xog fiican ka hesho oo aad ku qanacdo xogtaas, bilow ganacsigaas.
midda kale ganacsiga ku bilow lacag yar oo aad adiga iska leedahay. Ha isku dayin inaad soo qaadato deymo fara badan, maxaa yeelay ganacsiga aad bilaabayso khibrad badan uma lihid. Waxaa laga yaabaa inaad ku khasaarto, kadibna aad ka niyad jabto ganacsi oo dhan. Tusaale, adigoo ka shaqaynayo shaqadaada joogtada ah, bilow ganacsi online ah sida inaad online-ka ku iibiso dharka ragga oo heer sare ah sida shaararka, saraawiisha, kabo, saacado qurux badan. Kadib markii shaqadaada online-ka ay kugala kacdo, furo dukaan yar oo macquul ah, kadibna si joogto ah ugu shaqee dukaankaas. Waxaadna ka dhigataa isha ugu muhiimsan ee dakhliga soo gala. Talaabada toddobaad, maalgelinta hantida maguurtada ah. Maalgashiga dhulalka bannaan ee qiimooda macquulka ah waxay kuu noqonayaan ganacsi aadan marnaba ku khasaarayn. Waxaa laga yaabaa dhul qiimo yar aad ka bixisay muddo kadib qiimihiisa inuu ku laba jibaarmo. Haddii aadan khibrad u lahayn maalgashiga dhulalka, aadna ka cabsanayso inaad ku khasaarto, waxaad ka bilowdaa iibsashada dhulalka qiimahooda aadka u yaryahay si aad u bilowdo tijaabada maalgashiga hantida maguurtada ah. Tusaale, inaad dhul yar ka bixiso $2,000 ah, dhulkaasoo ku yaal magaalada bannaankeeda, laakiin dad yar degan yihiin, biyo iyo korontana laga helo. Dhulkaas muddo kadib qiimihiisa kor ayuu kici doonaa, waxaadna ka faa'iidaysaa lacago badan. Sidaas ayaadna si tartiib tartiiba ugu sii soconaysaa inaad maalgashato hantida maguurtada ah, waxaadna ka helaysaa dakhli fara badan mustaqbalka. Talaabada 8aad, guri kirayso halkii aad guri iibsan lahayd. Inaad guri iibsato waa arrin aad muhiim u ah. Shakhsi walbana waxaa loo baahan yahay inuu ahdaaftiisa mustaqbal ku darsado inuu iibsado guri asiga u gaar ah si uu ugu noolaado. Laakiin inta lacag kugu filan oo aad guri ku dhisan karto aad ka helayso, waxaa kugu waajiba inaad guri kiraysato si aad ugu sii noolaato. Marka ugu horreysa aad shaqo bilowdo, hore ha ugu fikirin inaad shirkad lacag ka soo qaadato oo aad ka soo daynsato, kadibna lacagtaas aad guri ku dhisato. Ama inaad shirkad kula heshiiso inay guri kuu dhisto, adigana bil waliba lacagta mushaarkaaga inaad wax ka jarto. Arrintaas waxay kugu keeni kartaa cimrigaaga oo dhan inaad deen guddo. Marka iska ilaali deentaas xad-dhaafka mustaqbalkaaga ayuu baasbixi doontaa. Ee ka foojignow. Talaabooyinkan aan soo sheegnay haddii aad si fiican u dabaqdo, alla ka cabsi iyo istighfaartan aad ku darto, insha Allah hadafka aad nolosha ka leedahay waad gaari doontaa. Intaan ayaan ku soo gabagabaynaynaa mawduucina maanta. Assalaamu calaykum.